وحساك السر رسمي وزارة عافمادك oo iskaashanayeen hay'adda UNFPA ay ka bilaabeen mashruuca hooyada iyo dhallaanka degmada Garada kaasoo ay ka hawlgeliyeen doctor khibrad u leh isla markaana ka yimid gobolada dalka mashruucan oo la filayay inay ka faa'iideystaan in ka badan 500 qof ayaa saaka xafladii furitaanka ahayd waxa ka hadlay maayirka degmada Garada oo ku soo dhaweeyay waftigan iyo agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska علي الشيخ عمر iyo madaxa caafimaadka fidinta hooyada iyo dhallaanka hodan maxamuud ismaaciil iyo doctor Idris Xaaji Nuur oo kamid ah doctorada ka hawlgeli doona ahna madaxa caafimaadka dhallaanka ayaa ugu horreyn xafladii furitaanka hadalla kooban ka soo jeediyay ugu horreyn munaasabada waxa ka hadlay maayirka degmada Garada Faarax Aadan Ciise hadaladiisina waxa kamid ahaa sida tan sida aragtaan halkan maanta waxa lagu yimi dhaqaatiir ka socota wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ay kaashanayaan ama ay taageerayso hay'adda UNFPA waana qaybtii qoyska iyo dhallaanka runtii inoo keenay mashruuc aad iyo aad muhiim ah oo ah daadejintii caafimaadka hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan iyadoo dadka waaweynaba ay la socdaan ka bilaabmaya oo loo qabanaya 5 cisho oo hawlaha dardargelinta caafimaadka qoyska hooyada iyo carruurta yaryar mushaha loo yaqaan kuwa carruurta yaryar kale 5 sano waxa meesha jooga dhaqaatiir khibrad weyn u leh xanuunada daaweynteeda iyo baaritaanka beeshinada caynkaas ah waxa weeye barnaamij ku saabsan in la gaaro dadka jooga degmooyinka fogfog iyo tuulooyinka in la gaaro oo wado barnaamijka waxa wada wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda UNFPA oo iyaduna ku hawlan hawlaha caafimaadka kala shaqeysa wasaaradda iyo gabagabada waxa xafladda soo afmeeray agaasimaha waaxda caafimaadka ee arrimaha qoyska Cali Sheekh sagoo arinta ka hadlaya hadalkiisa waxa kamid ah sida tan anoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka gaar ahaan wasiirka iyo agaasimaha guud iyo kaygaba waxa halkan aan ku talagalay in goobtii labaad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan ee barnaamijka fidinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka aan ka fulino ay nasiib u hesho oo aanad ugu faraxsanahay degmada Garada waxa looga fuliyo kaliya laba xanaano Hargeysa ku yaala مدرسة TV qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garada